فيها ورتل القرآن افضح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. walaalaha sharafta leh waxaa idinku soo dhaweynayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad kusoo dhawaada muuqaalkan waa muuqaalkii koowaad ee muuqaladeenii taxanaha ah oo aan horay idinku sheegay. muuqaaladaasoo ay salka ku hayaan aayadaha qur-aanka afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluhaa iyo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi ghayrillaahi lawajaduuhu fiihi ikhtilaafan kasiira. aayadahan waxay noo sheegayaan in aan qur-aanka aan ku tadabburno. sidaas darteed waxaan soo qaadanaynaa aayado qur-aanka ka mid ah oo wareegto ah sidaan ugu tadabburno intii karaankeena ah qur-aanka insha allah. kan waa muuqaalkeenii ugu horreeyay oo aan uga hadlayno oo waxaan soo qaadanaynaa aayado wareegto ah. kusoo dhawaada mar labaad asxaabta. maanta waxaan soo qaadanaynaa aayadaha suuradda boqolaad suuratul caadiyaat aayadda koowaad ilaa iyo aayadda shanaad insha allah. bismillaahi araxmaani araxiim. acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waalcaadiyaati dabxa. ilaahay baa dhaaranaya wuxuuna leeyahay ilaahay wuxuu ku dhaaran karaa wax alaala wixii khalqigiis ah wuxuu doono, laakiin makhluuqaadka uma banaana inay ku dhaartaan waxaan ilaahay ahayn. marka ilaahay baa dhaaranaya wuxuu leeyahay waalcaadiyaati dabxan. waxaan ku dhaartay buu leeyahay fardaha kuwaasoo ortama, kuwa dheereeya, dabxan iyagoo soo saara cod, saableydooda cod soo saara. hinqashada shayga markuu si xawli u dheereynayo codka soo saaro ee khaasatan fardaha. falmuuriyaati qadaxan iyo kuwa soo saara holaca sameeya qadaxa markay ku qaraacaan qoobabkooda dhagxaanta. orodka ay ordayeen keliya markay qoobabkooda ay dhagxaanta isqabtaan ay holac iyo birqi ku dhasho wey. falmuqiiraati subaxan iyo ilaahay wuxuu kale kusii dhaaranayaa falmuqiiraati subaxan kuwa duulaanka qaada subaxan aroortii duulamo wey. kuwa aroortii duulaanka qaado waaye, yacni fardaha laga hadlaayo ilaahay uu ku dhaaranayo waa fardaha dagaalka. ma aha faras keliya. faras ma tahay keliya maahay, waa fardaha dagaalka khaasatan ba ilaahay ku dhaaranaya. fa atarna bihi naqcan kuwaasoo orodkooda dheereentiis awood ay kicinayiin naqcan boor iyo siiga ay kicinayiin. markay orotmaan isgarab galaan dheereenta iyo xawaaraha dartiis waxay kiciyaan siigay kicinayaan buu ilaahay leeyahay. kuwaasoo fa wasadna bihi jamca waxay gudaha usii galaan buu ilaahay leeyahay meeshay ku socdeen, duulaankay ku socdeen iyagoo isku urursan oo aan kala tagsaneen bay sidii gudaha usii galayeen meeshay ku duulayeen buu ilaahay leeyahay. fa wasadna bihi jamcan waxay gudaha usii galayaan meeshay ku socdeen iyagoo jamac ah isku urursan. suuraddan gudaheed ilaahay wuxuu tilmaamayaa astaamaha gaarka ay leeyihiin fardaha kuwa dagaalama ee duulama, wuuna ku dhaaranayaa. ulajeedada dhaarta waxay ku biishoonaysaa in bini aadamku uu yahay mid aan rabbigiis ku shukrinin nimcooyinka ilaahay u siiyey. iyo waxaa jira meelo kale badan oo qur-aanka ka mid ah oo ilaahay uu dhaaranayo si loo ta'kiidiyo arrin xaq ah oo la sheegi rabo. balse halkan shaqada adag iyo shidada rafaadka ku jirto oo ay marayaan fardaha kuwa dagaalama ee duulaanka qaada ayaa waxaa loogu wacay inay marag ka noqdaan xaqiiqada, taasoo ah in
insaanku uu yahay mid aan ku shukrinin Allihiisa oo uu ahayn shukri badane. midda kale waxaa loo baahan yahay inuu bini'aadamku uu fiiriyo fardaha, khaasatan kuwa dagaalama, kuwaasoo halis u geliya naftooda inay ku safraan xaalad adag oo khatarteeda leh, khaasatan meelaha goobaha dagaalka ah ayagoo u marayo dhul bahgooye ah ama dhul buuraley ah, ayagoo markaas raacsan ama adeecsan amarada ay bixinayeen dadka ayaga gacantooda milkisay ama dadka dhabarkooda saaran yihiin. halka bini'aadamku oo uusan abuurin fardaha, xataa uusan abuurin wax ay cunayaan, keliya ay shaqadiis tahay in uu siiyo wixii markaas nabaad ah ee dhul ka soo baxay inuu usoo guro uu siiyo, kaasoo weli asaga uu abuurin oo Ilaahay uu abuuray. sidaas la ajligeed fardaha waxay garwaaqsadeen oo ay garteen oo ay xaqiiqsadeen nicmadaas yarta oo bini'aadamku uu ayaga u sameynayo oo ay tahay inuu usoo guro wixii nabaad ah uu u keeno intaa yarta ah, ay waxay ku xaqiijisteen oo ay garwaaqsadeen, waxayna diyaar u noqdeen inay naftooda halis u geliyaan oo ayna xamilaan dhib iyo shida midii uga adkeed oo ayna amarka ku duulaan. midda cagsigeeda Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray bini'aadam, uu ku abuuray dhibic yar oo aan awood lahayn, markaas wuxuu ku manaystay xubno aad u sareeya oo awood leh, caqli leh iyo dareen wadayeel aad u shaqeynayo, taasoo ay u suuri gashay bini'aadamku in Ilaahay uu ka dhigto khalaa'iqdiisa midka ugu fadli badan, wuxuuna ku irsaaqay dhammaan risqigii uu u baahnaa. sidoo kale wuxuu ku manaystay bay'ad uu ku fushado dhammaan wixii baahidiis ah si cajiib leh. laakiin bini'aadamku wuxuu ku guuldaraystay inuu garwaaqsado uu xaqiijiyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay ku manaystay, mana uu noqonin mid shukri badana ah. sidaas la ajligeed Ilaahay wuxuu leeyahay dhaartii asaga uu soo dhaartay kadib, innal insaana lirabbihi lakanuud, bini'aadamku wuxuu noqday dhab ahaantii mid rabbigiis aan ku shukrinin oo shukri badana ma aha. kelmadda kanuud, Sheekh Alxasan Albasri wuxuu leeyahay waa qofka xisaaba balaayooyinka iyo sharta ay asaga ku dhaceen, markaasna iska iloowa nimcada Ilaahay uu ku manaystay. Abubakar Alwaasiti wuxuu leeyahay kanuud waa qofka ku bixiya nimcada Ilaahay uu siiyey si qaldan ee dembi ah. Sheekh Tirmidi wuxuu leeyahay kanuud waa qofka fiiriya nimcooyinka balse uusan fiirinin Ilaahay nimcoolaha ahaa. dhammaan isku soo duub sharaxaadkaas kulli waxay ku biishubanayeen in bini'aadamku uu yahay mid aan shukri badan ahayn. marka walaalayaal waxaa cajiib ah tusaalaha maldahan, tusaalaha qarsoon oo Ilaahayna siinayo quraanka gudihiisa si aan annaga u fiirino aan u fahanno. sidaas darteed ayaa Ilaahay meelo badan quraan ka mid ah wuxuu leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aan, oo quraanka miyaynan ku tadabburaynin, oo quraanka miyaynan fiirfiirinayn si qoto dheer u fiirinaynin. marka Allahna karsiyo, Allahna fahansiyo awoodeeda, Allahna siiyo kuwii quraanku tadabburay, Allah naga dhigo. marka way adag tahay quraanka in la bilaabo oo la dhameeyo iyadoo lagu akhrinayo
تدبير في القرآن، لكن إن شاء الله أنت كرانكنا الله نوكالمي وانسكو دينا. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin akhyaarta daawashadiina aad daawateen muuqaalkan. halkan ayaa kusoo afmeeri doonaa ilaa aan ku kulmi doono muuqaalkan xiga. wa aakhiru dacwaana walxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. بصوتك أسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمالنا